aan xilka qabanay meeshu dalka joogay waad ogtihiin maanta waxa aan sheegayno ma aha hadallo warqado ku qoran waa xaqiiq dhab ah oo jirta amniga meelihii ugu darnaa waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso waxaan filayaa dad fara badan oo mas'uuliyiin oo halka fadhida inay Boosaaso ka yimaadeen waxaan ka rabaa cawil inuu caddayn dhaba keeno meesha amni darrad darteed loo qunuuday masaajidka laga qunuuday jawaabtiisa laga rabaa kow labo waxaa dhulka sanaag oo dhan boqolkiiba 99 marka laga reebo magaalo Yubba iyo in yar oo lamid ah gacanta Puntland soo gashay muddadii aan xilka haynay waxaa maanta la joogaa oo wasaaradihii dawladda oo dhan joogaan magaalada Buuhoodle oo markaan xilka nimid khalkhal abni ka jiray iyo gacan ku haynta dawladda oo maqnay waxaa la sameeyay 4 xarumood oo ciidanka lagu tababaro iyagoo aan lahayn hal xero oo xataa aanan dayr lahayn waxaa maanta ku jira xerooyinka tababar ku socdo 520 xerada xorgoble oo maalinta talaadada aan furayno waxaa lagu guuleystay degaankooda in si daahfuran loo furo oo dadka oo dhan ay si midaysan uga shaqeeyaan waxaa isbeddel ku dhacay sumcaddii iyo horumarkii Puntland dhinaca dhaqaalaha 7 bilood 8 bilood aan joognay mushaharka aan bixinaynay cawil oo ka tirsanaa maamulka hore agaasinkiisa waxay ku guul daraysteen inay bixiyaan mushaharooyinka waxaan caddaynayaa inaan isoo taagnay waxaan ka codsanaynaa inoo ilaaliyo xasiloonida waxaan caddaynayaa inaan ishortaag ku samaynay habka ay doonayaan xildhibaano farku tirisa inay dawladda maamulkeeda ula wareegaan oo iyagu ay rabaan inay determine ku sameeyaan waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay gudoomiye su'aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu meel kalu marayaa hadalka madaxeed baad weydiisay waad aamusaysaa nidaamka dawladnimada haddaadan raacin mas'uuliyaddeeda adaa qaadi doona dawladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu addimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayey mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowga dawladdan ay dooratay in aan ku dhaqdo waxaan rajaynayaa shacabka Puntland inay wakiil ka noqdaan horumarka dalkan u socno waxaan leenahay mawaaqif siyaasiya waxaan leenahay mid amni xukuumadana annaga mas'uulka madaxweynaha u doorto ilaalinaya baarlamaanku waxaan rajaynayaa inay shaqadiisa aqoonsadaan waad mahadsantihiin fariista